markab siday tiro gaaraysa 2019 neef oo geel ah oo laga keenay Soomaaliya ayaa soo gaaray dekedda magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabia taasoo ka dambeysay kadib markii dhamaadka bishii Abriil ee la soo dhaafay ee dawladda Sacuudi Arabia ay ka qaaday Soomaaliya xayiraadii saareed dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliya ee loo soo dhoofin jiray suuqyada dalka Sacuudi Arabia haddaba iyadoo laga duulayo heshiis ay hore u gaareen labada dal Soomaaliya iyo Sacuudi Arabia ee la xiriirtay in xoolaha la keenayo ay soo maraan maxjarada baaritaanka caafimaadka inta aan loo soo dhoofin dalka Sacuudi Arabia ayaa waxaa cusub mudan in dhaqaatiirta maxjarada Soomaaliya ay ku guuleysteen in ay aad ugu howlgalaan sugitaanka caafimaadka xoolahaasi taasina ay keentay in maamulka dekedda magaalada Jidda uu xaqiijiyay in xoolahaasi ay badqabaan isla markaana uu fasaxay in laga soo rogo markabkaasi haddaba warbaahinta qaranka ee Soomaaliya oo la xiriirtay mudane Cabdullaahi Aadan Wadaadiid oo ah xiriiriyaha ganacsatada xoolaha Soomaaliya iyo kuwa Sacuudiga isla markaana ah qabiir ku xeel dheer arrimaha xoolaha nool ayaa tafaasiil kooban ka bixiyay xoolihii laga rogay markabkaasi iyo ahmiyadda ballaaran ee uu leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya waxaan u bushaareynayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba in xoolaheennii laynoo furay markabkii ugu horeeyay oo la yiraahdo Caadil oo ah maraakiibta ugu European style-ka ugu dheereeya uguna nadiiftan dhowrkii markab ee joogay dekedda Berbera in uu halkaa ka soo shiraacday oo soo shiraacday maalintii taariikhdu markay ahayd subaxdii 16 bishii shanaad 2020 uuna soo gaaray magaalada Jidda miinadan Jidda 18 labadii duhurnimo kadibna ay dhakhtaradii fuuleen iyagoo eegaya shuruudihii iyo 12 ahaa iyo xaaladda xayawaanka xoolaha markabkaasoo siday 2019 oo ay kala lahaayeen 4 carruur tijaarta xoolaha iyo Soomaali xoolaha lahayd xoolahaasoo runtii aada looga soo shaqeeyey oo aada loo soo baadhay oo dhan walba laga eegay iyadoo weliba ay jirtay roobab oo xoolaha looga baqaayo marka ay xilligan roobabka oo kale adhiga iyo gaar ahaan dhogorta iyadoo qoyan haddii lasoo raro finina ka soo baxaan oo xilli roobabka aan xoolo fiican lasoo raro oo shuruuc ka soo baxo oo aada runtii isugu taxalijiyeen sidii xoolaha looga taxadiri lahaa inaanay nagu soo noqon sida xoolaha Suudaan dhowrka 6-7 markab laga celiyay ayaa waxaa runtii arrinta runtii ay shuruudaha ay dawladdeena federaalka Soomaaliya ay aada uga shaqeysay sidii labada wasaaradood shuruudaha u fulin lahaayeen kuna guuleysteen taasoo noqotay shuruudihii inay ka soo baxaan maxjarada magaalada Berbera ku yaala shuruudihii iyo arrimihii lagala xisaabtamayay ay dhakhtarada Sacuudi eegayeen 12 qodob ahaa taasoo guul u noqotay Soomaalidii in xoolahoodu noqdaan xoolo nadiif ah oo shuruudihii loogu talagalay ka soo baxa taasoo noqotay inay xooluhu noqdaan xoolo aada u qiimo badan gaar ahaan xoolaha Suudaan oo lagu celin jiray manaacada iyo xanuunada qaar inay kuweyna noqdeen xoolo manaacadooduna sarreyso xanuunadii iyo wixii kondishada lagu xidhana soo wada maray halkaasoo runtii wax loo mahadnaqa ah in raggii ka shaqeeyey iyo maxjaradii kasoo shaqeeyey wasaaradaha xanaanada xoolaha meelay joogaan inay guul iyo karti iyo khibrad isu geysteen iyo qolooyinkii maraakiibta lasoo saaray iyo markabka wanaagsan loo dooray intaba ay tahay sharaf usoo hayatay Soomaalida meelay joogaanba haddaba Soomaalida ku nool dalka Sacuudi Arabia ayaa aad ugu riyaaqay dadaalka ay dawladda Soomaaliya ka wado ballaarinta iskaashiga ganacsi ee Soomaaliya la leedahay dalalka dibadda si loo kobciyo ilaha dhaqaalaha dalka Soomaaliya Ali Jaamac Cilmi Cali Kuus raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliya Sacuudi Arabia